السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان داودياشا قيمها له ما كميت هاي أرضيدا نتيجة دوان الشعي مثال كميت هاي أرضيدا قرشين يسح إن أي جامعات كلام جامعات ومال نرشة له سيد كرتجول وين برسكلية ومركا تقاند وحقات سمينيسو أما السبب جامعات أجلس howlaha muhiimka ah ee ku sugahaya inaad qabato muuqaalkan insha Allah taala waxaan in kula wadaagi doonaa 5 talo oo dahabi ah arday kasta ka caawinaysa in uu jaamacadda guul ka gaaro haddaad nagu cusub tahay waxaan ahay macallin cigaal tababar nololeed qoraa YouTube bixiya talooyin iyo tusaalooyin nolosha dhisa talada koowaad ee dahabiga ah biyo kaba dhibcaanka ah waxay noqonaysaa hadaf cad yeelo haddii aad jaamacadda gasho adigoo aan garanaynin sababta waxaad waayi doontaa dhiirigelinta aad jaamacadda ku dhammayn lahayd go'aanso hadaf cad waxa aad rabto in aad mustaqbal ka noqoto iyo sababta aad waxaas u baranayso waa maxay sababta aad jaamacadda u galayso qaado qalin iyo warqad kadibna jawaabaha su'aalahan jawaab u raadi maxaad kaga duwanaan doontaa ardaydii horay kulliyadan u dhameeyay haddana aan wax shaqahayn waa maxay sababka kugu kalifahaya in aad jaamacad gashid waa maxay sababta aad u galisid jaamacadda danta aad ka leedahay waa maxay anigu jaamacadda ma iska galaya mise ujeedada ayaan u galaya haddaad maanta fududeysatid jawaab u raadinta su'aalahan markaad jaamacadda dhamayso ayaad jawaab u raadin doontaa sababta aad jaamacadda ama kulliyadan qodobka labaad ee muhiimka ah wuxuu noqonayaa qorshe degso jaamacaddu waxay kuu qorshaysay waxbarasho 5 sano soconaysa maalin walba xiisad ayaad qaadan doontaa waqti waliba waa mid hor loo sii qorsheeyay halkaas waxaad ka baran kartaa muhiimadda qorshaha marka la qorsheeyo 5 sano waa wax aad iyo aad u badan laakiin markaad qorshe la'aan tahay waa muddo kooban oo soo gabagabay ogow hadaf qorshe la'aan ah ma hirgalo aan ku siiyo tusaale cad hadafka jaamacadda aad gashay waa inaad 5 sano kadib aad noqotid qalin jabiye ama qof qalin oo jaamacadda dhameeyay haddaba sidee ay ku suurtagali kartaa jaamacaddu waxay qorshaysay sidii aad 5 sano jaamacadda uga bixi lahayd wax walba aad qaadan lahayd haddii ay tahay casharo haddii ay tahay macallimiin haddii ay tahay fasalladii haddii ay tahay waqti walba iyo maado walba wixii aad qaadan lahayd haddaad u baahan tahay hadaf iyo qorshe insha Allah taala inaad degsatid anagoon ka caawin karaa talada saddexaad waxay noqonaysaa maareynta waqtiga meesha ugu liidata ee bulshada inta badan laga soo galo haddii aad waqtigaaga ku dhameysid baraha bulshada waxa jaamacadda dhammayn doontaa iyada oo jaamacadda ku dhameysay laakiin adigu aadan dhamayn haddii waqtigaaga aad ku bixisid kaliya in aad casharo akhrisid waxaad dhammayn doontaa jaamacadda adiga oo xifdisan intaas oo page oo oraahyo ah haddana aan suuqa looga baahnayn haddaba maxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay inaad waqtigaaga maamushid in aad waqtigaaga u jadwaleysid inaad cashara jaamacadda baratid hurda caafimaad leh macnaha xilli hore hurda seexatid cunto caafimaad leh waxaad cuntid kala jadwaleysatid casharada xilliga akhrinaysid xilliga wax kala baranaysid xilliga aad practice qaadanaysid waqtigiisa qof u kala jadwaleysan yahay inaad noqotid haddii aad kaas ku guuldareysatidna jaamacadda in badan oo nolosheeda xataa kasii dambaysa ah waxa macquul inaad ku guuldareysatid talada afaraad ee muhiimka ah haddii aad tahay arday jaamacadda isku diyaarin waxay noqonaysaa baro sidii cilmiga loo raadsho casharadu waa muhiim laakiin aqoonta dhabta ahi waxay ku timaadaa marka aad barato sidii cilmiga loo raadsho waa inaad saaxiib la noqotaa maktabadaha seminaarada internet waxaad kasban kartaa aqoon aadan ka helaynin jaamacadda noqonaya xiriir wanaagsan samee marka jaamacadda gashid waxaad isbaran doontiin bulsho inaan hore isku garanaynin waxaad ka soo tagi doontaa bulsho aad garanaysay halkaas waxaa kugu furan fursad ah inaad isbedel samaysid haddii hore saaxiibadaada iskuulada ay ahaayeen kuwa aan wanaagsanayn hadda waxaad chance u haysataa in aad iska bedeshid oo saaxiibada aad jaamacadda ku baranaysid aad ka dhigtid oo wanaagsan kulama saaxiibadaada wanaagsanaadaanna waa markasta oo noloshaadu ay sii hagaagto markasta ku dadaal in aad saaxiibo wanaagsan aad kasbatid markaad jaamacadda soo gashid la saaxiib macallimiinta wanaagsan mararka qaar xiisadaha iyadoo aan lagu jirin raadi si aad uga heshid talooyin wax ku ool ah qodobka ugu dambeeya ee muhiimka waxa uu noqonayaa baro xirfado dheeri ah jaamacaddu ma aha kaliya buugaagta aad soo xambaaranaysid sidaas wax walba ku sii wadid aakhirka aad leedahay hal isoo hambaliyay jaamacaddii waa dhameeyay baro xirfado dheeraad ah
sida computer skillska, luqadaha, xirfadaha nolosha. Noqo qof meel walba ka dhameystiran. Isku diyaari maalinta safarkaaga uu bilaabanayo ilaa maalinta uu ka dhamaanayo in aad gaartid hadafkaaga cad ee kuu qoran. Haddii muuqaalkaani uu ku anfacay oo aad wax badan ka faa'iiday, la wadaag walaalahaaga iyo asxaabta kale. Ilaa muuqaalka xiga, nabadiin.